soo dhawaada waa walaashiina Janai workshop oo maanta idin soo bandhigaysa saabunta sameyska saabun ayaan sameynaynaa maanta inta saabunta sameyn mar walba u baahan tahay gloves inaad xirato maxay ahaydeen indhahaaga protect gareyso waxaad u baahan tahay moldka aad ku shubanaysid saabunta waxaad u baahan tahay mixerka also waxaad u baahan tahay saliidi iyo productkeena waxaanayto waan idin video kala idin sameynaya aan idin ku tusayo saad cabiraada u sameynaysaan marka maxay ahaydeen cadarkiina waan isticmaaleynaa insha Allah kanina waa kii lagu jaranayay saabunta markay diyaar noqoto insha Allah hadda maanta uma baahnin maadaama aan saabunta kuwan ku shubanayno oo ayaga go'san marka soo dhawaada waxaan idin tusayaa habka aan u sameeyo saabunta marka hore waxaan ku shubayaa maadaama aan joogno cimilo oo Soomaaliya joognaa maadaama cimiladeeda ay tahay isheeg waxay ahaydeen biyaha uu adag yahay marka waa khasab inaan isticmaalo productkan hadda isticmaalay marka markuu clear noqdo ayaan insha Allah ku shubaynaa layga inta waxaan ku shubanay layga mar walba waa inaad biyaha ku shubid balse aad ku shubtaa layga biyaha ayaa lagu kushubaa marka fiima ka baxaya inaadan inhale gareynin oo meesha joogtidna waa inuu maxay daaqadaha furan yahay oo yacni uu ku gelin sunta ka baxda the lye insha Allah marka we will give like 10 minutes so then tusaya biyaha already clear waaye labada bis baan u baahanahay iminka insha Allah marka saad aragtaan layga tartiib ayar inaad ugu shubto aad ka fogaato waa inaad ka fogaato while you stir it make sure inaadan ku neefsanin kuma neefsan kartid dab ayay noqonaysaa kuleel ayuu noqonayaa dadka saabunta sameeya way garanayaan maxaan ka hadlayo inaad ka ilaaliso biyaha seeta jirkaaga inuu taabanin mar walba wax shaar gacmo dheer labisana fanaanad gacmo dheer waa inaad xirataa aad ka fogaataa insha Allah waad aragtaa marka waan sugaynaa ilaa biyaha uu ka nadiifoobayo waxaa noogu jira black seed insha Allah black seed kaaseeto waxaan ku darayaa wax yar oo halkan waxaan isku daray saliido badan adiga choice-ka adiga baa leh saliido badan ayaan isku daray marka xoogaa baan halkan ku shubanayaa saan ugu qasto waxaan ku qasanayaa labadaa baan isku qasayaa waa exfoliatorka hadhow ugu dambeysta ayaan ku shubi doonaa kana waa maxay ahaydeen Epsom salt hadaa kor taqaaniin xagga kore ayaan hadhow ugu shubaynaa Epsom saltkan yar ayaan saabunta korka kore ugu shubaynaa kadibna cadarka ayaan ku darsanaynaa mixerkaanit insha Allah black seed ayaan isticmaalaynaa iyo oilyaal badan jojoba oil iyo grape seed oil way badan yihiin marka insha Allah waan idin tusayaa suu kusoo baxo mixerka iyo waqtiga hadhow aan ku shubi doono hadda ma isticmaaleyno saabunta markii aan isku wada darsano ugu dambeyn ayaan kaa ku shubeynaa insha Allah intaanan ku shubin moldka hadda waxaan cabiranayaa waxaan ku darsanayaa maxay ahaydeen ma aqaano magaciisa laakiin waxaa weeyaan 5% subaga
geelka, right? 5% qaadaan ku sameynayaa, so good. Good. So aragtaan هذا الميكستشر كينا واقع إن شاء الله exfoliator كان كدرية waxaad doontaad ku darsan kartaa adiga daa doonto waxaad ku darsan kartaa هذا qasilaad ku darsan kartaa waxaad ku darsan kartaa waxyaabo badan huruudaad ku darsan kartaa aniga product kaneeto waxaan ugu talagalay dadka acne-ga leh so هذا acne-ga ayuu baabi'inaya so kan kusuuleeyahay so waan ka waa in la burburiyo waxoo dhan oo meel la dhigaa wax yar warm laga okay qolisotan markaa faadkan ku darayaa هذا ayar asagaa melt gareynaya qof walba si buu u samaystaa saabuunta aniga I have my own ways marka saad aragtaan halkaasaan ku baabi'inaya badanaa subag waxaan u isticmaalaa subaga kan oo geelka wuu ka duwan yahay subagyada kale shea butterka iyo markaad isticmaalayso iyo wuu ka duwan yahay kaneetu waa biyo marka wuu ka fudud yahay subag ma laha yacni subag lama oran karo laakiin caafimaadkiisuu leeyahay insha allah wuu baabi'inaya saad aragtaan subag yar unbaa kasoo baxay marka wax badan ma isticmaalo wax yar baan ku isticmaalaa haddaan shea butter isticmaali lahaa xoogaa wuu ka duwanaan lahaa marka diyaar wax yar daqiiqada baan siinayna insha allah black soap ayaan ku darsanayaa so waa inaad maxay diyaarsataa moolsyaashaada waa wax yar waa inaad ku shushubtaa adiga markaad bilaabaysid ayaad saa sameynaysaa dhinac baad u dhigaysaa alaabahaaga oo dhan maxay hadan insha allah biyaha diyaar waaye adiga 110 iyo xoogaa waa okay horba aan it should be okay so slowly baad ugu daraysaa Okay guys, maxay hadan xoogaa waqti baan sii taafir baan ku hadlay waa diyaar waan mix gareynaynaa insha allah cadarkeena waxayna ku shubaynaa waa diyaar yar adkaaday so mixer baad ku sameynaysaa trace markuu noqdo xoogaa haddaad doonto color baad ku darsanaysaa aniga okay let's put this in there kan baan ku dareynaa our mixture wuu yara adkeynaya maxaa yeelay wuu yara qabow yahay the whole thing is yara qabow laakiin masha allah absolutely perfect was sabun Somali
inaad xirnaataa dhar ku cover gareynaya suu kugu daadan gacmahaaga iyo korkaagana ka okay cadarkan iska yar bedelay sari boot ayaan ku darsanayaa. I love this one. Maadaama aan aniga sameynayo waan garanayaa intaan u baahanahay, so don't worry about it. markuu qalalo ayuu si qurxoon u soo baxaya. Kaad aragtaa labadoodaba.